وهرب حصلنا يا بسيط وسارة إسكارسيتا بدوبيا هاي الشغالة أجسمها شكو اسمها استوكا أجسمها لها أجسمها كل ديجانكا بدوبيا كمشي كمان مناجا لما أنت يشغل وينها مسارة إسكارسيتا نطرياش أي جسمياش يلما مرتشارة كسر شيء مناسبة المعرفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي كما هذا إنه كل بيئة بالبيئة عافمار مناسبة المعرفة. من هو كل سنة كما هذا غياب بينها جمهورية الصوماليلان من المسبح عبدي عمر لوالي مدينة حل كلام كقوته أسلم كانوا لديه وشداء يغرق جمهورية الصوماليلان. مرجع كتوحنا هذا غياب وزير وزارة إسكارسيتا أو سفير عن المصور الشغالة شغالة يوم سفير داخل الكوهينة يبغى يسوقر مستعجل وحكى لهم هذا غياب أجاسم وحيدنا وزارة إسكارسيتا ولا أنتو أنا سويت كشيء إنه واجب هيجاتو وحكى عليه ولا تصدقه يوم ما شغالة هنوصي مادة وزارة إسكارسيتا ويكتيرانا ترياش وزارة إسكارسيتا تنوجد waxaan kaloo mahadnaqayaa dhammaan hay'adihii dawladda ee shaqo wadaagta ahayd ee sida wanaagsan ee loo soo wada shaqeynay. Waxaan kaloo mahadnaqayaa shirkadaha isgaarsiinta, shirkadaha ICT-ga iyo kuwa boosta oo wasaaradda wada shaqeyn ay leedahay. Mudanayaal iyo marwooyin, ujeedada maanta halkan joognaa waxa weeyaan inaan ku wareejiyo xilkii agaasimaha guud ee cusub يوسف وصلنا مدحوينها جمهورية الصوماليلان اسمه مقعابي سيدي لاتن في بشي أكتوبر لوقت كوبر لاتن waxaan loo rajaynayaa inuu si fiican xilkaa uga soo bixi doono ilaahayna ku garagaro oo u gacanaya. haddaan yar idinka taabto waajibaadka wasaaradda waxaa si cad u qeexaya xeerka kala xadaynta xukuumadda waxaa si cad u qeexaya xeer nidaamyaha dhismaha wasaaradaha iyo xukuumadda xeer nidaamiye 1/2018 xeerkaasoo golayaasha sharci dejintu ay wax ka bedeliya kaabis ku sameeyeen sanadkii 2020 isla markaana noqday xeer number 50/2020. waxqabadka wasaaradda haddii aan kolley hadalka kuma dheeran doono waxaan in yar u istaagi doonaa muddadii aan xilka hayay oo ah 12 bilood oo hora wixii noo qabsoomay oo aan si wada jiro qabanay haddii aan leedahay. wasaaradda muddada aan joogay waxaa noo qabsoomay 8 mashruuc baa loo hirgalay. sidoo kale waxaa noo qabsoomay barnaamijyo 9 xeerarka siyaasadaha hagayaasha iyo heshiisyada wasaaraddu samayso waa 11 qiimeynaha iyo cilmi-baadhisyaha la sameeyey waa 3 tababarada ay wasaaraddu siisay shaqaalaha wasaaradda iyo shaqaalaha kale qarankaba waa 9. haddaan dul istaago mashaariicdii noo hirgashay muddada waxaa ugu horeeya mashruuca horumarinta iyo governmentka mashruucaas oo ah mashruuc mar walba socda isagu barlamaad iyo barbilow ma leh maadaama ilaa iyo markii la ansixiyey siyaasadda iyo governmentka. mashruuca waxaa nooga hirgalay inaanu dhammaystirnay degalka guud ee qaranka Somaliland oo goorta kaasoo ay ku dhan yihiin 55 institution oo qaranka mareegahoodii websaydadoodii islamarkaana aad ka heleysaan dhammaanba 3 dhaqaale qaranku ka kooban yahay dejinta fulinta iyo garsoorka. waxaa kaloo nooga qabsoomay mashruuca e-governmentka oo mar dhaweynta gudoomiyaha maamulwanaagga ka dhawaajinayay emailada. muddadaan joogay waxaan samaynay 124 email oo loogu talagalay wasiirada agaasimayaasha guud iyo agaasimo waaxeedada wasaaradaha iyo hay'adaha madaxa bannaan. waxaase nasiib darro qiimeyn aanu samaynay bishii Oktoobar inay ka soo baxday 100%
miisaaniyad baa qaranka kaga baxda lafjab bayna ku tahay runtii waxaana rajaynayaa wasaaradda iyo komishanka maamulaha inay iska kaashan doonaan sidii looga shaqaysan lahaa mashruuca iyaga farmadku uu ballaaran yahay waxaa kaloo looga hirgalay rasmiyeynta 12 mareego baraha bulshada inta badan waxaynu aragnaa institution page khaldan la isticmaalayo oo warar aan run ahayn raadna lahayn lagu faafinayo si taa looga hortago wasaaraddu waxay samaysaa rasmiyeyn 12 mareegood ayaa looga suurtagashay inaan samayno mashruuca labaad ee noo hirgalay waxaa weeyaan mashruuca diyaarinta xarumaha ICT-ga mashruuca waxaanu aasaasan xarunta hal-abuurka tiknolojiyadda Somaliland Innovation Zone oo bishii Oktoobar la daahfuray waxaa mashruuca gacan ka geysatay dowladda Taiwan sanduuqa horumarinta ICDF ee dowladda Taiwan waana ilaahay haddii inay maanta shaqaynayso xarunta hal-abuurka tiknolojiyadda oo wax badan qaranka kusoo kordhin doonta tababarkii u horeeyeyna laga bilaabay kowdii bisha oo ay ka qayb qaadan doonaan ama ka faa'iidaysan doonaan 30 hablood oo ah hablaha shaqaalaha dowladda ah farxad bay leedahay mashruuca saddexaad ee isagana loo hirgalay waxaa weeyaan mashruuca maamulka hirarka oo ay nooga hirgaleen tirinta iyo kormeerka 5 gobol 4 gobol ma odhan karaa iyo Gabiley oo aanu ku samaynay kormeerka taawarada kuwaasoo aanu hubinay tayada qalabka taawarada saaran ee shirkadaha isgaarsiinta sidoo kale signalka ama obligta ka soo baxaysa iyo inay waafaqsan yihiin shuruudaha ay wasaaraddu dejisay ee ku kusan xeer nidaamyaha goobaha isgaarsiinta mashruuca afraad ee isaguna socda waxaa weeyaan sanduuqa mashruuca boosta oo maxay ahayd aanu sanadkii boosta wasaaraddu soo iibsatay balse caqabado jira ogeed weli aan loo helin dhismaha iyo goobtii laga hirgelin lahaa mashruuca shanaad waxaa weeyaan mashruuca ciwaanada ee magaalada Hargeysa Postal Address System mashruucaas oo dhowaan wasaaraddu shirka gashay shirkadda Chison shirkadaasoo samayn doonta ciwaanada magaalada Hargeysa isla markaana wax badan kusoo kordhin doonta ma noqon doonto keliya in Hargeysa loo sameeyo ciwaano laakiin mashruucaas wuxuu abuuri doonaa ilo dhaqaale oo fara badan haddii ilaahay ku fuliyo mashruuca lixaad ee hirgalay welina socdaal waxaa weeyaan mashruuca furaha dalgalka mashruuca toddobaad waxaa weeyaan mashruuca isku xidhka laamaha dowladda heshiis aanu galay wasaaradda isgaarsiinta iyo dowladda Taiwan ayuu mashruucaasi qayb ka ahaa heshiiskaas 3 qaybood buu lahaa qaybta isku xidhka nidaamyada dowladda iyo qaybta shabakadaha dowladda la horumarinayo iyo qaybta hal-abuurka tiknolojiyadda ama carbinta shaqada carbinta technology-ga dhalinyarada lagu carbinayo marka mashruucaas waxaa nooga hirgalay shirkadii isku xidhi lahayd nidaamyada dhawaan baa laga geli doonaa heshiiska waxaana qayb ka ah oo wasaaradda kala shaqaynaysay dowladda Taiwan mashruuca sideedaad waxaa weeyaan mashruuca shabakadaha dowladda government private network mashruucaasi wuu socdaa dhowaan baanu baahinay shirkadii ku guulaysatayna waa shirkadda Somtel waxaa laga yaabaa wiiga ka soo socda iyadana shaqadeeda dhaqaaqo sidoo kale wasaaradda anagoo siinayna ahmiyad inaanu kor u qaadno wacyiga bulshada maadaama aanay bulshadu ka haysan wacyigelin ku filan dhinaca technology-ga waxaanu xooga saaraynay dhinaca wacyigelinta sanadkan 9 barnaamij baa noo qabsoomay barnaamijka ugu horeeya wuxuu ahaa barnaamij aanu kaga hadlayno deegaaminta aqoonta ICT-ga maadaama aanay luqad gaara oo